garxajsa waxaan idin leeyahay waa la idin taargad gareeyay dagaal sokeeya lagu dhawaaqay waa laga bareeray dagaalka gala oo ilaahay ku dadkiina difaaca oo dhiigiina difaaca bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh halkani waa xaqiiqa falada barnaamijkeenu maanta way ka duwantay kuwii hore waxaan kaga hadlayaa guddidii cusbayd ee garxajis ee cuqaasha iyo salaadiinta reerku dooratay oo aad looga qayliyay oo kuwii baadilka iyo beenta iyo xaqdarrada ku soconayay ee magaca reerka dilay ay ka qayliyeen ayaan doonayaa inaan ka hadlo aan bilaabe guddi xisbi samaystay oo arrin xisbi ku hadasha oo ku jirta ayaa warbaahinta maalin walba la soo taagnayd inay guddidii garxajis tahay meel lagu doorto garxajis ku doortayna may jirin guddi xisbigaasi samaystay waddan la yidhaa oo wax allo waxay madaxdoodu ka xishooto oo dhan inta loo dhiibo oo warqad loogu soo qora iyagu ku hadla iyagoo haddana magacii reerka isticmaalaya ayay ahaay maalin quraata dhaqankamay hadal iyo wax dhaqankoodii iyo arrimaha reerka maalin walba waxaa xisbigaa waddani uu xumaynayo ama qarribayo ee ayagu ay ka xishoodaan kuwa wax xumaantooda ayaa loo dhiibi jiray waxa youtube-ka ka buuxa iyo waxay ku hadleen oo dhan iyo waxay ka shaqaynayeen waa wax qof kastaaba og yahay waa nimanka dowladda maanta jirta maalintii la doortay ee ay bilowga ahayd ee xisbiga waddani uu doorashadii lagaga badiyey waa nimankii buurtaa gacan libaax fuulay ee siyaasadda la fuulay ee guddida gacan reerka sheegtay ee sideedda qodob soo qoray ee siyaasadda ah ee jaraska xoornimada ah ee lahaa habaro wal ma arki karno ee lahaa habar jecle ma arki karno ee waxay ku hadlayeen iyo sida ummadda u kala qaybinayeen aa arkayseen waa nimankii shantaas sannadood ee madaxweynuhu joogay warbaahinta taagnaa ee dumarkayagii iyo maatidayadii qurbaha joogay ee bilaa caqliga ahaa ee lacagtooda lafahooda u quuri waayeen ka guranaya ka furaynaya maalin walba lahaa muuse annagaa kasoo saarana madaxtooyada iyo dagaal baanu ridina ee xagga alliyata iyo raggaa ay mari waayeen ee dee garxajise wanaagga ka shaqeeye ee maxay samataliska meelay ka dhaafanay waayeen waa nimankii burcayntay dhowaan ku shireen soo saaray go'aamada ah deegaankayaga doorasho ka dhici mayso haddaan lasoo horreysin ta madaxtooyada mar walba waa nimankaa siyaasadda ka hadlaya maalin quraa dhaqan loola tegey oo dowladdaa maanta joogta iyo shacabka somalilan iyo qaranka somalilan ay dhaqan ula tegeen waa maalintii arrinta laascaanood gobollada somalilan oo dhan deegaanadeeda hogaanka dhaqankee joogaa ay ergada ku tegayeen laascaanood waa nimankii intay warbaahinta ka hadleen halkaa siyaasad ka dayey ee shuruudaha ku xidhay ergadii allahuma najina waa niman aan waxba ka xishoon alla waxay ka xishoodaan ma jirto ninkaa guddoomiyaha laga dhigtay ina axmed ismaan caddagude waxa uu la mid yahay oo uu la meeqaam yahay oo la mustawe yahay ninkaa galad dagaalka lahaayee haddii alla ku ina garaad cali iyo isagu walla inaan waxba kala duwanayn nimanka noocaas ee aanaan dooran baa 6 sannadood xaaraan reerkaa ku haystay magacii reerkaasi waxayna bareen ummad aanna aqoon ayay xumaan noo bareen iyo waxaanaan ahayn bay noo geliyeen meel walba waa taa lanaga leeyey waa la gumaystaayey waa reer la gumeeyey ina garaad caligaa waalani waa kii nagu lahaa cid ka jawaabta la waayey ee gudnimadii la qaatay gudnimana meelay noo soo martay iyo gudnimo aan ku jirnaana ma jirto cabdiraxmaan cirrun baa doorasho ku dhaco lagaga badiyey oo si xalaala xor looga badiyey oo orodkii lagaga dheereeyey ceeb kale oo dhacday dalka ka dhacday ma jirto doorashadana in la dhacay iyo inaad guulaysatay inaad guuldaraysato labadaba waa loo tartamaa laba gooroo ka horreysay buu faysal tartamay garxajisna uu ahaa hadal lagama maqal iyo qaylo axmed siraanyo oo ninka taariikh badan isaaq aanu ku jiran ama somalilan ayaa dhacay oo daahir riyaale uu ka badiyey oo tolkii ka raacay daahir riyaale oo farahi oo isaaqi joog iyo jaaq lagama maqan intuu kaga badiyeyna waa loogaa cabdiraxmaan cirro markii ugu horreysay doorasho galay oo meel fiican gaadhay ayaa waxaan ku yidhi isagoon
maalintaas laga badiyay la bilaabay dagaalkii qaylada markaasaa garxajis oo ka kaclayay magacayagii baa la dilay garxajis gudnimo ma qabee intiisii iyo in ka badan buu ku haystaa waddanka haddaanan tusaaleeyo magaalooyinka ugu waaweyn ee hargeysa iyo burco iyo ceerigaabo iyo berberi ka mid yihiin ee isaaq gaarka u dego ama lala dega qaarkood madax bay ka yihin hargeysa ayagaa xukuma cidu kulama tartamin keligood ma degaana dee isaaqoo dhan baa degaan cidu kulama tartamin burco ayagaa xukuma 3 reer baa dega iyo in kaleba way degtaa 3 reer baa kuwa ugu waaweyn yihiin cidu kulama tartamin ayagaa xukuma ceerigaabo reer badan baa dega cidu kulama tartamin ayagaa xukuma habar jecla dee xaq bay u lahayd markoodii baa hayd intaasoo sannadoodoo la haystay guddoomiye kamay noqon ceerigaabo intaaba waa la siiyo waxaan ku waa lagu tanaasul afar berberana ku xigeen bay ka yihiin oo dee habar jecla ku xigeen xaq bay u lahayd afartaa magaalo afartiiba madax bay ka yihiin golaha wakiilada 30% nin ku dhow bay leeyihiin oo 82 kursi waxaan ku wari dhowr iyo 20 bay leeyihiin halkaana cid kaga badan reer kaga badan ma jirto xisbiyada iyo ururada maanta jira labadii hore ayagaa loo tirinaya 3 dambena way jiraan waa ina mahdi buuba iyo cabdilaahi dahab iyo gaboose xisbiyadii hore jira 3 ahaana 2 ayaa loo tirinayo siyaadi haystay kuwan maanta ururada la furayna ayagaa ugu badan dowladda jirta ee golaha xukuumadda ayagoo mucaarida oo aan codsin dowladda kuwii ku tabcay ay ahayd inay ka kuraas bataan ilaa waa la tartamayay oo nimba meel ayuu codkiisa mariyay ayay haddana saamigoodii ku haystaan oo aan cidina kagama saami badnayn guurtida cidina kagama guurti badna reer isaaqo ka guurti badan ma jiro ayaga dadka sidaa uga muuqda dalka weeyaan ammaanka dalka ayagaa maamula heerka sidaa uga muuqda weeyaan dalka kursigaa madaxweynuhu baa ka maqan waxii kale ee la sheegay ka maqani waa balaayo uun haddana meel walba islaanta tagtay jareertaasoo ka odhanaya garxajis baa taa waa lagu gumay nagu odhanaya halkaana waxaa na gaadhsiiyey khayrka iyo rag nimankaa guddida garxajis sheeganaya ayaa wallaahi na gaadhsiiyey ee annaan dooran mana annaan dooran waan idiin sheegayaa anigu ardaayada ciidagala ugu waaweyn ee mid ka weyn aanu jirin haddaanu kagu weyn baahayn ayaa ka soo jeeda maalintiina cadda gudan la dooranayay hal caaqil 5 caaqil baan leeyahay hal caaqil muu dooran cadda gudan oo anigii wallahi uu dooran haddana waxa la ilagu qasbiyay sanka laga gelinay sidoo aan dooran oo la og yahay maanta ninka guddida joogta waxay ka gurmatay geerida reerka iyo magaca reerka la dilay xisbi uma wado cid ma wadato raggii lahaa magacan ee ka lagu ciyaaraya la baabiyey ayaa u gurmaday anigu aqaashaydan leeyahay maalinta in cadda gudan may dooran maanta way fadhiyeen sawirradooda meesha ka muuqdaan way doorteen kanay doorteen ayagoo xora ayay doorteen arrintii nooca ahayd xaqii ayaa baadilkii soo aflagaadeynaya oo soo qaylinaya oo xaq darro ku socda in badan baa ka hadasho ka qaylisay waxba ka soo qaadi maayo ragga kale waxaan ka hadlayaa ninka la yidhaa khadar guun oo xildhibaan golaha wakiilada ah iyo ninka la yidhaa siciid curayo isna golaha deegaanka hargeysa labadaa ninoo labaduba hayshayn kari waayey oo fatahay baan u jawaabaya dadka kale waxba odhan maayo waxaan leeyahay golayaal baa laydin diray ee dhaqanka reerka laydinma dirin wakiilna noogama tihdin dookhiina naguma qasbi kartaan khadarow adigu shalay adigu ahaa ninkii lahaa ina cadda guda buurtu reerka saaray ma ninkii reerka buurta saaray baan dabagala adiga afkaaga laga haya nin afkiisa lagama xalsiiyo kulmiyaad ahayd haddana waad ka baxdo waddani baad gashay haddana waad ka soo baxdo kulmiyaad gashay 5 jeer baad kala noqotay meel lagu raacana ma liid adigunba afkaaga ka lahaa kanaan ahay iyo kanaan ahay iyo qarax baan galaa iyo meel qarax yani ninkaa heedadowga ah ayaa taho waxa kaa wanaagsan adiga kuwa halkaa ka soo dagaalamaya ku qalajistay ee bilowga halkay ku bilaabeen weli joogay dagaalka ku jira haba qaldanaadaan kuwaas adiga kaa fiican waayo garantiin ma jiro berina afkalaad ku hadlaysa baldayaha saatay kolba dhan u jeesanaya waxaan ku leeyahay ku eekow shaqada lagu diray oo ha soo dhex gelin arrimaha reerka in adeerka in cadda guday xoogna nagumuu qabsan
manaanan dooran noogumana dhigi kartid guddoomiye kaanu doorannay baa shaqaynaya oo reerka matalaya ka magaciisa dilay inaan magdhow la weydiiyo weeyaan ayaa wallahi xaq loogu leeyahay magdhow oo lagula xisaabtamo wuxuuna yeelay waxaa xukuma ina caddo gude rashiid maxamed jaambiir baa xukuma oo ninka guddoomiyaha runta ahi waa rashiid maxamed jaambiir rashiidna waa ninkii lahaa anigu xirsi uma daba socda kulmiyana xirsi baan ku ahaa waddanina xirsi baan ku ahay intuu dhaartay oo la maray ninkii yidhi buu ahaa xisbinimo iyo qabyaalitoon aniga waddan ima geyn kaa kasii daba socdaa ayaa ka liita cid walba kaa kasii daba socdaana waa ina caddo guda iyo waxa isaga sii daba socday garxajitaaya waxaa lahaydeen muuse biixi baa ayaa ka dambeeya war muuse biixi wuxuu iska xidhay intaasoo boqoloo somalilan oo madaxtooyada ka qaadan jirtay mushahar oo nin waliba 1500 ku qaadan jiray buu maalintii yimi iska xidhay hadduu doonayo uu haysan la kuwii isaga doortay oo buur madow iyo xasankaa jeegaanta abtigeed ay kow ka yihiin oo isaga doorto garab taagna maalinta la dooranayay ayuu haysan la wuxuu haysan waayey wuxuu raaciyey kuwa kale reer somalilan oo muu kala reebin war ma ninkii kiisa haysan waayey ee nimankaa dawaafaya ee heehaabaya samada sidii diyaarad raadaal ka xumaatay naga hayn kari waayey ayaa garxajisoo hunguriga lagu xanto badihiisa gelaya oo guddidiisa ka shaqaynaya been baa ilahay u sheegaysaan wallaahi waa ribinaysaan waa masabinaysaan been baa sheegaysaan garxajis isagaa doortay guddidan maanta joogta waana mid ururada iyo xisbiyada iyo siyaasadda ka madax bannaan guddidaa waxaa sameeyey suldaankii guudaha habar yoonis oo nool oo shaabadiisii haysto warqadda shaabadeeyey waa suldaan maxamed suldaan xirsi qani oo suldaankii guuda waxaa shaabadeeyey oo aqbalay suldaankii guuda ciidagalo daawud yare ah suldaan daawud suldaan maxamed suldaan cabdulqaadirah waxa aqbalay oo wax doortay cuqaashii reerka siciid iyo daawuda nin baa laga hayaa war markhaatigaa waa aadan ka weyn maalin buuri war arrinta doorashada taa ka weyn ee labadii suldaan reerka u talinayey iyo cuqaashii reerka matalaysay nimankay doorteen waa iyo ninka hor istaagi kara maxirsi baa annaga noo samaynaya guddi noo samaynaya onu daawannaa warra la kala xishoodo qoladan garxajka caqli gale ee samataliska ee guddidan soo kiciyey hal baan leeyahay reer somalilandna hal baan leeyahay guddida hal baan leeyahay garxajka nimanka soo kiciyey samataliska hal baan leeyaho war nimanka ayaynaan dayicinay innagu aynu gunnayno oo aynu u samayno haddii alle kuu roon yahay kharash si aanay cidna u baahan oo aan xirsi kala wehelin oo innagu aynu gunnayno oo aynu ka ilaalinno inay sidii kuwii hore siyaasadda dhex galaan oo ay xisbiyada iyo ururada dhex galaan mid walba inay dhex u noqdaan baa laynaga rabaa waxa laynaga rabaa inaynu dhaqankii noo ekaadano dhaqankii laynaga baabiiyey ninkaa waddanigaasi naga baabiiyey aynu soo noolayno iyo magaceeni la dilay oo aynu ku ilaalinno halkaa oo dariiqii laynagu baabiiyey aynu ka ilaalinno kuwanna markaasaan leeyahay qolada samataliska ah ee garxajis qolada reer somaliland hal baan leeyahay reer somaliland waxaan leeyahay war ninkaa aanu iska qabanay in caddo guday iyo ninkaa galad dagaalka kala halaas caanoy saaxdheer ka yimi wallaahi waa isku mid 6 sannadoodba dagaal inuu ka ridaa muu dalka doonayay meeluu naga maraabu waaye god xadhig guxdhaba waanu furayni carruurtayadii iyo dumarkayagii iyo maatidii qurbaa joogtay bilaa garashada ahayd wax magaratada ahayd naxli iyo cudur buu dadkoodii uga buuxiyey meel alla meel laga keenay aanaan garanayn iyo waxna geliyey adduunka lama arag laandheere aan cidina ka badnayn oo cuqdadii gasho oo dadkiisa cuqdadu gasho waraggu waa istilaa laakiin cuqdadii anagu dhaqan uma lihin meel lagu soo dilay dadkan garan mayno waxaa la geliyey cudur aan ka baxayn ee dadkoodii loo geliyey oo meeshaad ka aragtaba nin weynoo kuleega oo wuxuu doona iska hadlaya daacuun hadduu somaliland soo weerariyo gurigiisa shacabku wuu garaacaya miyaanu bukin ninkaasi ciidankaa qarankay leeyihin halkanay galeena kaalay ku laaya oo meel walba ka leeyihin wax lagu hadlaaba waxaasaa nageeyey waxa nageeyey halkaana gaadhsiiyey waa guddidaa ina caddo guday kaa galad dagaal kalehee ina garaad caliyo isaguna wallaahi waa isku mid waxaan leeyahay qolada reer somaliland war waanu ka gelgelanno waanu iska tuurnaye guddiga garxajis ha noo maqlina kuwa aanu tuurnay guddida saxda ee samataliskii waa taa magaceedu wanaagsan yahay ee laysku raacay waxa laydinka baahan yahay
haddaa garxasha la kulmaysaan iyo haddaa la dhaqmaysaan iyo haddii wax dhex marayaanba kuwa aanu tuurnay ee aanu iska tuurnay ha noo maqlina ee guddida nasteexa ee shaabadihii salaadintii sidata ee aanu samataliska dadkooda walaalanaysa midaynaysaa la shaqeeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu